dalkan yare Taiwan cidna ma aqoonsano, laakiin dhaqaalaheegu wuxuu gaadhsiisan yahay in ka badan 800 oo bilyan oo dollar, waxayna ka dhaqaalo badan tahay dalalkan South Africa, Nigeria, Masar, Bakistan. Sidee dhaqaalaha intaa lee ku samaysay jasiiradan yar aan la aqoonsanayn? Muxuuse Shiinuhu ugu duuli waayey? Shiinuhu oo ka dhaqaalo badan 10 jeer, oo ka dad badan, kana diblomaasiyad fiican, kana awood weyn dhinac walba. intaana muuqaalka gudaha u gelin waxaad ogaataa jasiiradan Taiwan waxaa degan dad Shiineesa, yacni dadkani af Shiina ayay ku hadlaan, waana dad Shiina ah. dowladan ka jirta jasiiradan yar ee Taiwan waxay aasaasmatay kadib boqortooyadii Shiinaha marka ay burburtay dowladii bedeshay dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxay isku dhaceen kooxihii Shuuciyiinta uu hogaaminayay Mao Zedong. dowladii dhaneyd ee Shiinaha ninkii hogaaminayay sanadii 1949 ee lagu magacaabi jiray Chiang Kai-shek ayaa ku guuldareystay dagaalkii uu kula jiray kooxihii Shuuciyiintu midowga Sofiyeetka taageerayay. Chiang Kai-shek markuu u baxsaday dhanka ay Taiwan wuxuu sii watay amba sii raacay dowladiisii oo dhan, iyo culimo iyo arday xirfad leh iyo cid walba oo xukunka Shuuciga ka soo horjeeday uu awooday inay tagto dhanka ay jasiiradda Taiwan. haddaba su-aal ayaa isweydiinaysaa, waxay isleedahay Shuuciyiintan haddiiba Shiinaha intaa leeg ay ka soo saareen dowladii dhaneyd ee ka talinaysay, ma waxay uga daba tegi kari waayeen jasiiradan jaarkooga inay maraakiib qaataan ay halkaana ka saaraan? maya, laakiin madaxweynihii xilligaa qabsaday Shiinaha ee Shuuciyiinta hogaaminayay Mao Zedong, Shiinuhu xilligaa wuxuu ahaa 100 milyan. shaqo fara badan ayaa u taalay inuu Shiinaha intaa leeg gacanta ku dhigo. brobleemo kalena way jireen, sida inuu qabsado dalkii Tibet iyo inuu la dagaalamo kooxihii rabay inay ka go'aan Shiinaha ee ahaa Uyghurkan muslimiinta ee degan gobolka Turkistaanta bari. dhinaca kale barina waxa uga taalay shaqo aad u weyn. xilligaa waxaa bilaabmay dagaalkii labada Kuuriyana waxaa la kala jiray midowgii Sofiyeetka Shuuciga ahaa iyo Maraykanka oo ahaa ra'samaaliyad. dabcanna Shiinuhu maadaamuu Shuuci ahaa wuxuu la jiray Kuuriyada Waqooyi. haddaba ha u imaano sidee bay Taiwan ka horumartay ayna ku heshay teknolojiyadan inta leega maanta caalamka looga baqo iyo jibkan elektarooniga ah. sababta ugu weyn ee keentay Taiwan inay horumarto qarnigii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah in qarnigii lasoo dhaafay adduunku uu 2 qaybood u kala qaybsanaa, qaybta midowga Sofiyeetka iyo qaybta Maraykanka. yacni adduunka xilligaa 2 fikradood ayaa ka jirtay: fikradda hanti wadaagga uu midowga Sofiyeetka hogaaminayay iyo fikraddan hanti goosadka ee kabitaalistigu uu hogaaminayay Maraykanku. labadaa fikradood ayay Taiwan ka dhex faa'iidaysatay. haddaan ku dhaha ka waran kooxahan Shuuciyiinta ee qabsaday Shiinaha sanadii 1949 adduunku muu aqoonsanayn. adduunku keliya wuxuu aqoonsanaa dowladii hore Shiinaha ee u guurtay Taiwan ilaa laga soo gaadhay sanadii 1970. markaas ayaa dowladan Shiinihii Shuuciga adduunku aqoonsaday, Taiwanna lagala laabtay aqoonsiga. haddaba dowladan ka jirta jasiiradan Taiwan si fiican ayay uga faa'iidaysatay 20 sano oo adduunku aqoonsanaa. 20 sano mantiqadan ay ku taalla Taiwan waa ay gubanaysay. waxaa socday dagaalkii labada Kuuriya. Maraykanka iyo midowga Sofiyeetka ayaa isku haystay baddan Shiinaha. saas darteeda Maraykanku si ayna Taiwan ugu dhicin gacantii midowgii Sofiyeetka iyo Shuuciyiintii Shiinaha ka jiray Taiwan, Maraykanku ilbaab walba ayuu u furay. taasna waxay keentay dadkii Shiinaha ahaa ee adduunka ku baahsanaa Yurub iyo Maraykanka joogay ee ka soo horjeeday nidaamka Shuuciga ayaa iska xaadiriyay jasiiradan Taiwan. Maraykanku wuxuu kaloo u qabtay jasiiradan Taiwan ardaydii deganaa jasiiradan Taiwan ayuu qaaday, wuxuu geeyey Maraykanka. cilmi nooc walba, teknolojiyad inta ay soo barteen ayay dib ugu soo laabteen jasiiradan Taiwan. 20 sano haysatay Taiwan aqoonsiga caalamiga. Maraykanku Taiwan wuxuu ka dhisay jaanibka caskariga, weliba badda iyo cirka, iskagoo siinayay maraakiib aad u waaweyn si ayna dowladii Shiinaha ee faqiirka ahayd aana ugu soo shaqo jaamin. 20 sano Taiwan always waxay noqotay dowlad warshada leh, aqoon fiican leh, tacliintii bay kor u qaaday. 20 sano la aqoonsanaa Taiwan iyo horumarka aadka u weynay gaadhay waxay u sahashay inay xidhiidh aad u fiican la yeelato wadamada adduunka ugu horumarsanaa xilliga
Jabbaan iyo Yurubiyaanka. 20 sane Taiwan la aqoonsanaa ay horumarka intaa la gaadhaysay. Dhinaca kale, dowladdii kale Shiinaha Shuyuuciga ahayd lama aqoonsanayn, waxayna ku tiirsanayd Midowgii Sofiyeetka, yacni 1950 ilaa 1970. Waxay ahayd dowlad aad u faqriya. Haddaba maxaa dhacay sanadii 1970-meeyadii? Sanadii 1970-meeyadii, Shiinuhu markii hore wuxuu ku tiirsanaa Midowgii Sofiyeetka, laakiin sanadii 1970-meeyadii Midowgii Sofiyeetka ayuu ka goostay, waxayna isku beddeshay dowladda Shiinaha dowlad pragmatica, yacni danteeda raacanayso. Dowladda komunisti ayay iska sii ahaanaysaa, laakiin suuqii iyo noloshii ayay furfureen. Dadku qof kasta sharikadu iska samaysan karaa. Sharikadaha kabitaalistiga ee caalamkana Shiinaha way iska iman karaan, way ka furan karaan suuqooga iyo sharikadahooga. Ogowna dadka Shiinaha sanadii 1970 waxay gaadhayeen in ka badan 900 milyan. Ma qiyaasi kartaa 900 milyan haddaa ka dhex furato suuq iyo sharikadaada inaad dhaqaale intee le'eg ka samayn kartid? Kabitaalistigu intaasay arkeen. Kadibna sanadii 1971 waxaa dhacay wax taariikhi ah in wadamada adduunka kuwii ugu waaweynaa Yurub iyo Maraykan inay kala laamaan aqoonsiga Taiwan oo ay siiyaan dowladdan Shiinaha. Inkastoo dowladdii Taiwan aqoonsiga lagala laabtay, laakiin ganacsiga looma jirin oo lama saarin cunaqabatayn. Waa ay kala duwan tahay markuu dalku yidhaahdo kuma aqoonsani iyo cunaqabatayn baan ku saarayaa. Maraykanka iyo Yurubiyaanka iyo Jabbaan iyo xitaa Shiinahaba iyo wadamada kale adduunka waaweyn ee saameynta leh sida Hindiya, Brazil iyo Australia ma aqoonsana Taiwan, laakiin haddana ganacsi waa ay la sameeyaan. Farqiga u dhexeeya dal la aqoonsan yahay oo haddana Maraykanka iyo kooxdiisa cunaqabatayn ay saareen iyo dal aan la aqoonsanayn laakiin Maraykanka iyo kooxdiisa iyo wadamada kale ay ganacsi la sameeyaan waxa weeyaan Kuuba iyo Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ay mar dhow saareen Maraykanka iyo kooxdiisa cunaqabatayn. Dhaqaalahoodu dhulka ayuu galay, siba Kuuba iyo Kuuriyada Waqooyi waa hore ay saareen cunaqabatayn ayagoo ah haddana dalal la aqoonsan yahay. Taiwan waxyaalaha kale ku badbaada waxa weeye waa electronic chipskan yar ay ku shaqeeyaan telefoonada, ordinatorada, diyaaradaha iyo qalab walbo elektroniga iyo AI-gan. Eeda keligeed ma soo saarto, waa iska sii jiri jirtay, wadamada waaweyn ayaana soo saari jiray, laakiin eedu waxay kaga duwan tahay, teedeedu aad bay u tayo fiican tahay. Waxayna soo saartaa jibiska adduunka 50%. Taasoo macnaheedu tahay jibka elektroniga ay soo saarto dowladdan Taiwan, Shiinuhu uu isticmaalaa, Maraykanku uu isticmaalaa, wadamada Yurubyaankana waa ay isticmaalaan. Shiinuhu markaa wuxuu isku dayayaa jibkan inuu koobiyeeyo oo jib ka fiican ka Taiwan inuu soo saaro kadib weeraro Taiwan.